xogta ugu muhiimsan maantay oo Jubbaland waxa weeye in waqtiga dhamaaday in isbedel la ololeynayo in Soomaali baan nahay oo nimankii meesha u bartay ay weli ku dhagan yihiin aanay ogolayn in la tartamo dhibaato lagu qabo inta aan musharaxiinta aan ogahay aan ka maqlaaya intaas waay ay taana aan kugu daray ay tahay waxaan laga yeelahayn Kismaayo waxa lagu yimid dhib badan dagaalo dhiig baa ku daatay markii dambana heshiis oo waqti badan laga shaqeynayay oo weli shacbiga intiisa badan oo ku ceel qabo anigu beesha ka soo jeedo kale waa ku ceel qabnay sankaan ka gelin yaa waa keenna beesheedii xildhibaanadeennii waagii aad sababtay nin walba beeshiisu keenayay dhib badan inkastoo lagu qabo haddana waa qaadanay haddeerna burbur lama rabno laakiin laga yeeli mahayo in doorasho iyo dadka rabaa inay tartamaan in lagu dhigo magaalada laga yeeli maayo ama maamulka ayadoo aan ognahay dhowrkii sano ay joogeen inay airport ka dhaafi waayeen goob weyn oo hadda la bilaabay in la isku sawiro maahan oo ayadana sheeko cusub oo aan ayadana ka hadli doono fiir adeer anaga waagan koob tagayno dagaalada ka socdeen Kismaayo aqligaada ma gali karin xush meesha ay joogtay daruuraha ka qarinaysa xaqiiqada hal rabaa in laga hadlo intii dambe aan tagay xushas waa si yaraanaysa ilaa maalmihii u dambeeyay aadan ark uga jeedi karin baa laga xaaqay wax hadda bilaabmay haday jiraan maaqaan laakiin Kismaayo iyo dhuxul waayahan isku soo dhawaan anigu saan isleeyahay marka waxa jira dad raba inay ka faa'iideystaan oo waxaan jiri sheegay anigu hadda oran mahayo ma jirto waana jirtaa oran maayo waxaan samalaynayaa haday jirtana inaysan badnayn beelaha qaylinaya bay ka mid tahay beeshii anigu aan xildhibaanka u ahaan jiray ma yara qaylad waxaan rabaa Soomaaliland in la isku naxo reerka hadda lagu tuhmaayo meesha inay haystaan ruuxooda qayla ka soo dhaxyarta waxaan ognahay xildhibaan xasanad laga qaaday la xiray ilaa markii dambe yiri waa iscasilay oo aan ognahay in qof iscasilaa jirin darashada laga saaray yiri marka dhib badan baa meesha ka jirta haddaan u soo noqdo su'aashaada beeshayda ha qaylo badan baa ka jirta aniguna hadda warqado dukumeenti aan hayo oo aan maaragtay ilaahay uga fogaanayo waxaana hubin ma sheegayo laakiin wixii la ii sheegay ee dadka aan ka maqlay waxa weeye in dhulkaas aan ahayn dhul la iibiyey ciddi iibisana aan lahayn waraaqa saxna lagu gadan waa dadku waxay sheegayaan mid baan soo ogaa waxaan ogaa inay jirto riixid saa'ida oo maamulku isticmaalayo oo beeshan hadda qaylinaysa ka qaylin maysa hadda madax kale waxay ka qaylinaysaa waxa weeye ninka bood matala beeshan ninka matala loo isticmaalaa ninka goobweynta hadda sheegaya geynahayay oo reerkiisii oo culummo ah gabdhihii culummada ahaa iyo reerkii sharafka lahaa iyo gabdhihii aan la arki jirin ninka u geynahaya dadka oo lagu soo sawiraya sidii Masaai ay yihiin Masaayida Kenya Soomaaliya sida la isku masawiro buu gaarsiiyay walaalkay ninka i matala beeshiisii oo goobweynta tal taga la isku masawiro waxaasoo dhan ninka ku sameeyay beeshaydu ma sheegan cid kale maaragtay xaaliyada inay farta ku taagaan anigu waxaan isleeyahay waa gardaran yihiin kan matala waaye ninka ku sameeyay goobweyn buu ka sameeyay ceel dhig ninka durkanaya asaga waaye ninka buldoosarada gelinaya dhulka dhan asaga waaye 2000 3000 4000 oo boosas la waxaynayo laga gadaayo dadka waxaan ognahay xamar in loo joogo dhul badeedka waxaan rabaa inaan u sheego shacbiga Jubbaland oo dhan dhul badeedka ma bixin karaan nimanka la yiraahdaa maamulku ma bixin karo dhul badeedka waxaa leh dawladda federaalka leh waxaan ogahay in xamar ay u yimaadeen inay dad geeyaan ay leeyihiin waa dad goofleydii dad ay xamar ka soo aruusheen waaye oo lagu qorahayo si dhul badeeda dawladda federaalka iyo wasaaraddu ay u bixiso halkan baan la soconnaa ilaa intay yihiin kama warqabno laakiin waa la soconnaa waa la ogyahay haddii la idin yidhaahdo Kismaayo dhul badeed laga bixiyo waa been intaa laga bixinaya haddana markaan anigu beesheeda u soo noqdo ninka ku samaynaya waa ninka ku matala Jubbaland dadka kale laga raadinaya dadka maamulku waa leeyahay Soomaaliland nahay geela waa la wada jirtaa waana la kala jirtaa wiilkiina weeye ninka gacmaha idin haya asaga waaye ninka waxgada haya asaga waaye ninka idin barakicinaya asaga weeye ninka la rabaa in la xisaabtantaan waana asaga ninka la rabaa inuusan wajiga labaad oo Kismaayo inuusan mar dambe soo gelin oday weyn baana
حقيق وأنا الحقيقة ذو هينين مرة بين الشيء حنت مكوش يا جمرك حنت وحوي إكسمايو هذا سيدا لول نوليها نولانين والله مسافرنا وأركيد دير والسوما في سافر شو أو بيشيء دي بيلك ولا سوماليا لكن أنا حقيقة أنا هاي ما شفته طبعا جورا أن تجينا الله يمر وضع مجال كبح وحقيقة أنا اللي ما جيسن حتى مركز دجال كتير نبكم أنا قبلين ده سوماليا ولا هنا واي ده دجانا واي لما كان معمول كهيا طلياني ما هنوضع كلا كيمي بتكلم ربعنا جيش شيء وحنا بقول إني نجوين أنت سحسان أنا واحد دجال كمان شو أنا وشوف بلان هالشيء كان سوينا واحد شوقي إسماعيل وحنا ويا يلا نلقو كده نسيها يلا مجالة يهدى جارتي معمول كاس إنبوس وجارسية سيستم كأنه يقول حشقيه أنا وش علان لها بربرين أنا وقتال المايو سيستم كان يقول حشقينا لكن لمن كفديت كا وشقي واي وبدل بدل كان مدي دي كران أنا ربعت أنت سو وكفر حسنا أنا قبل وده دجالكي كنا لما يصير دورشوا وحيربتها هات دورشوا حبان كل شيء tallaabooyinka ay soo qaaday Jubbaland oo ahayd dhiig ilaa markii dambe ayadoo la sacabinayo waa wax fiican dad badan oo aan ku faraxsanayn waa jiraan aniga beesheeda qaar baan ku faraxsanayn laakiin waxbaan ku sheegay qofka rabaa in Soomaaliya wax isku kabkabto bilowgii meeshii ay joogtay iyo maalintii doorashadu waxay rabtaa in noqoto doorashadu ama nin un halkaas bastoolad looga hayay ma jiraan doorashadii waa fadhiyay ya لكن أدون كله وكل عذا مصلحة يرو لكل اللي هي مال بيجالين يا لما كنت حد معنا لها وكسر بحين واللكترية وحقيقة إن ما كسر عذيان إيش الله يجالين قف كي كمان بيسين كرين ما قف كي كويلة هذا وحي هيد يس مال وطن وكل عذا وحد عاي وحوها إن دجال يحبط يو واحد دور شاء نكاسنا ودجاينا intii bilowga ahayd fiican buu sameeyay waayahan damada Soomaali waa taqaana waa isdhiganaya ninkii mana raba meesha inuu ka tago mana ogolaanayo wixii la hadla wixii war ku soo celiya soo waxyaalahaas hadda socda laakiin inta aad sheegto dhan waa soo joogay dagaalkii waa soo joogay heshiiska waa soo joogay sababa cala masaalkii waa joogay bahalkii doorashadii waa joogay waxa soo dhan waxa u joogay wuxuu ahaa bal in ummadda Soomaaliyeed ay heshiiso hatta meesha ay joogto dad lagu wada qanacsanayn meel laga bilaabo baa la geeyay hadda bay khatar u tahay haddii nimanka intaas loogu adkaystay ay dad inuu la tartama diidaan hadday diidaan ee dadku xaq leeyahay ay sheegaan inay khaldan yihiin hadday khatar ku jirtaa inay burburto anigu waxaan leeyahay yay naga burbulin baashaas xogaagaas yar meeshaas aad keenteen waa ku mahadsantiin nimanka hadda jooga ha u diyaar garoobeen inay tartamaan dadkana ha ka daayeen caga jublaynta dhulboobka la sheegayana oo weli aniga beeshadu ka qaylinaysan waa dhulboob waqti badan socday waxaana anigu leeyahay nimanka reerkayga ahoo ka qayliya si fiican uga qayliya wiilkiinana idin dhacayo ogaada dadka kale afla gaadi